السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرن جنال كمركز السود واضح أدي هذا ومهات سنتهين مانتا وإسنين وأنا لبي لباتنك بيش ديسمبر إلا بيتبنات سنة كلابا كن إيوشان يلا باتنك وقال كان waxaan rabaa inaan idinku wadaago wasaaradda amniga gudaha oo kordhisay lacagta la siinayo dadka iskood isku masaafuriya oo Mareykanka ka taga isla markaana wadankoodii ku laabta lacagtaasi imisa ayaa la gaarsiiyay waan idin la wadaagayaa madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka JD Vance oo ka hadlayay shirka ay soo qaban qaabiyeen hay'adii iska lahaa ninkii cadaanka ee cunsuriga ahaa ee jaamacad ku taala Utah lagu dilay bishii September ee Charlie Kirk oo haddana xaaskiisa ay madax ka noqotay ayaa waxa uu mar kale weeraray Ilhaan Cumar iyo waliba Soomaalida iyo xisbiga dimuqraadiga arintaasina waan idin la wadaagayaa iyo Epstein Files oo wasaaradda cadaaladda la leeyahay sidii la rabay ma aysan u soo bandhigin xubnaha Congress-ka ee labada xisbina ay ugu hanjabayaan in wasiirka cadaaladda lala tiigsan doono haddii aysan soo bandhigin Epstein Files sida loogu talagalay aysan u soo bandhigin waan idin la wadaagayaa balse marka hore soo dhawaada cumrada sanadkan Salama Group waxay idin haysaa adeegyo cusub waxaana kamid ah adeegyadaas 1 hoteello u dhow labada xaram ee Makka iyo Madiina looga halweyn karo xilliyada salaada 2 gaaridaad ku soo booqan doonto goobaha muqaddaska ah ee lagu xusayo taariikhda islaamka 3 barida qaabka loo guto acmaasha cumrada 4 cumreynta waalidka ama walaalka oo geeriyooday ma aan awoodin 5 haddii aad tahay qof qaba baahi khaas ah xagga caafimaadka waxaan ka caawin doonaa gudashada acmaasha haddaba ku soo dhawow qiimo jaban oo ku raali gelin doona wixii faahfaahintaasi dheer fadlan waa WhatsApp number eber 9645492847 mahadsanidin waalidiinta Soomaaliyeed ee jecel waxbarashada waxa la ogeysiinayaa looguna bishaaraynayaa in maxadka waxbarashada ee Somali Islamic Online oo ku hayo barnaamij waxbarasho diimeed ah oo ka caawinaya in adiga iyo ilmahaaguba aad si fudud u barataan quraanka iyo culumta shareecada maadooyinka dugsiga laga baranayna waxa kamid ah quraanka hikaada ahadiista ducooyinka tarbiyada asaasiga ah ee ilmaha tafsiir iyo qaybaha kale ee culumta shareecada qaabka waxbarashada dugsigaanina waa hab online ah oo waxbarashada aad ku qaadanaysan waxaad kala xiriiri kartaa gmailka iyo lambarada shaashada kaaga muuqda wasaaradda amniga gudaha ayaa waxa ay sheegtay in la kordhinayo lacagta la siinayo dadka Mareykanka iskood isaga masaafuriya oo wadankoodii ku laabtay waa dadka sharci darrada ah waxaan ognahay bishii March ee saddexaad ee sanadkan in wasaaradda amniga gudaha ay ku dhawaaqday abka la yiraahdo CBP Home oo qofku inta uu soo dejisto informationkiisa uu geliyo isla markaana dawladdu ay gacan ka siinayso qofkaas iyadoo aan la xirin in uu wadanka ka baxo waliba lacag $1,000 ahna la siinayay tikitka diyaaradana laga bixinayay laakiin hadda wasaaradda amniga gudaha waxay leedahay halkii lacag $1,000 la siinayo qofka wadanka iskii isaga masaafuriyo wadankiisii hooyo uu ka yimid dib ugu laabto waxa la gaarsiiyay $3,000 wali lacag badan ma ahan laakiin waxa ay doonayaan dad fara badan inay wadankooda dib ugu laabtaan tirada ilaa ay hadda laabatay waa la isku khilaafsan yahay wasiirka amniga gudaha waxay hore u sheegtay in ka badan 2 milyan oo qof in wadanka iskooda isaga masaafiriyeen oo wadankooda hooyo ay ku laabteen laakiin jaamacad ku taala California markii ICE ay ka codsatay in ay siiso xogta tirada dadka la qabqabtay iyo kuwa la masaafiriyay waxay ogaadeen tira 22,000 oo qof inay wadanka iskood ay isaga masaafiriyeen oo wadankoodii ay ku laabteen marka waxa ay doonaysaa lacagtan laakiin waxa la siinayaa qofka Mareykanka ka taga oo wadankiisa ku laabta ugu dambeyn 31 bishan December aynu ku jirno waxaan filayaa hadda 9 maalmood ayaa ka harsan 31 ay bisha ku dhamaata marka toddobaadkaasi gudihiisa haddii aad Mareykanka ka baxdo oo aad wadankaadii dib ugu laabato tikidkan waa laga bixinayaa lagumana xirayo $3,000 waa lagu siinaya waxa xitaa wasiirka amniga gudaha ay dhowr jeer ku celcelisay in dadka wadanka iskood isaga masaafuriyo oo wadankoodii ku laabta Mareykanka qaab sharci ah ay ugu soo laaban karaan laakiin haddii lagu qabto oo lagu xiro oo dawladdu ay ku masaafuriso macnaheedu waxay tahay laguma ogolaanayo mar dambe inaad Mareykanka dib ugu soo laabato dawladda waxa uu qarasheer dadku inay iskood isku masaafuriyaan laakiin dawladdu haddii iyadu dadka ay masaafurinayso ilaa iyo $17,000 ayaa uga baxaysa qofka marka ay masaafurinayaan laakiin hadda haddii qofku iskii uu isku masaafuriyo $3,000 oo hadda la sheego markii hore $1,000 ahayd iyo tikitka oo isaguna 1,000 kale laga yaabo inuu noqdo adiga 4,000 ilaa 5,000 ayaa qofka ku baxaysa hadduu iskii isku masaafuriyo laakiin haddii dawladdu ay tiraado waan masaafurinaynaa ilaa iyo $17,000 ayaa uga baxaysa marka hadda fikirkaasi cusub ay dawladdu soo jeedisay laakiin waa qofkii inta aysan bishan dhamaan ilaa iyo 31 bishan December sanadkan dhamaadkiisa isagu goosta
ama go'aansado inuu wadankiisii dib ugu laabto ayaa lacagta $3,000 la siinayaa weliba ticketkana laga bixinaya hadhowdiina loo ogolaan doonaa si sharciya inuu Mareykanka ugu soo laabto. dhinaca kale ururka la yiraahdo Turning Point America oo iska lahaa ninkii cadaanka ee cunsuriga ah ee Charlie Kirk oo lagu dilay 10kii bishii September isagoo jaamacad ka jeedinaya gobolka Utah haddana xaaskiisa ay bedeshay oo Erica Kirk gudoomiye ay ka noqotay ayaa waxay qabteen shirkoodii sanadlaha ahaa oo taageerayaasha xisbiga Republikaanka ee MAGA lagu casuumi jiray shalay oo axad ahayd ayaa waxa lagu qabtay in gobolka Arizona halkaas oo xarunta ururka Turning Point ay ku taalo marka kumanaan qof ayaa ka soo qayb gashay madaxweyne ku-xigeenka wadanka Mareykanka JD Vance ayaa halkaas khudbad ka jeediyay marka khudbadiisa ayaa waxa uu dheeraad oo ilaa 30 daqiiqo dhamayd ayaa waxa uu ku soo hadal qaatay waxa uu yiri durbaba xisbiga dimuqraadiga waxay hadda ka hadlayaan doorashooyinka madaxtinimada ee sanadka 2028 laakiin waxa uu yiri ma hayaan cid wanaagsan oo ay soo diraan waxay kala dooranayaan ayuu yiri gudoomiyaha gobolka California Gavin Newsom iyo Kamala Harris oo doorashadii ugu dambeysay uu Trump uga adkaaday marka wuxuu yiri qof wanaagsan oo ay soo diraan ilaa iyo hadda waa ila yihiin markaas kadib Ilhan Omar Jasmine Crockett iyo nin xisbiga dimuqraadiga aqalka sanadka uga sharaxan gobolka Maine ayuu weeraray wuxuu yiri Ilhan Omar waxa ay maayarka ay taageertay oo ay soo sharaxday in muqdishada yar uu u tartamo uu yiri markaasi si ula kac ah ayuu hadalkaas u yiri laakiin waxa uu iska dhigay wax uu carabku ka dafay macnaha Minneapolis ayaa waxa uu leeyahay waa muqdisho sidaas darteed markii dambe waxa uu yiri magaalada Minneapolis marka si ula kac ah ayuu hadalkaas oo kas ah ayuu u yiri in muqdisho ay magaalada Minneapolis ahaan uu ka dhigay laakiin ku talagal ayuu u sameeyay waxa uu sidoo kale weeraray nin la yiraahdo Graham Platner oo isagu xisbiga dimuqraadiga gobolka Maine u sharaxan ninkaasi waxa dhinaciisa midig ee xabadka ku qoran tattoo-gaasi oo xisbiga Republikaanka ay u turjumeen in calaamadii Naaziga uu yahay laakiin isaguna waxa uu yiri mar hore ayaan ku samaystay oo ma ahayn calaamadaasi marka waxa uu yiri ninkaasina waa ay wataan oo isaguna aniga igu tilmaamay yiri inaan Naazi ahay laakiin isagana xabadka ay calaamadii Naaziyiinta ugu qoran tahay waxa uu sidoo kale weeraray xildhibaanada madowga ah ee gobolka Texas laga soo doorto oo la yiraahdo Jasmine Crockett waxa uu yiri Jasmine Crockett ayadana sidoo kale hadda sanad ayay u tartamaysaa sababtuna waxay tahay maadaama xisbiga Republikaanka baarlamaanka gobolka Texas ay 5 kursi ee dimuqraadiga gobolkaasi laga soo dooran jiray ay ka dhigeen hadda kadib in laga soo doorto Republican oo redistricted ay sameeyeen waxa ay sheegtay marka hadda dhinaca sanadka ay u tartamayso maxaa yeelay haddii aqalka hoose ay u tartanto iyadu wax coda ma helayso kuma guuleysanayso marka John Cornyn oo ilaa iyo sanadkii 2002 sanad ka soo ahaa oo 72 jir ah ayay doonaysaa inay la tartanto iyaduna aqalka wakiilada waxay ku soo beertay sanadkii 2021 Ilhan Omar ay isku waqti ay iska agdhawaayeen oo ay soo gashay marka xubnahaasi dimuqraadiyiinta ayuu weeraray isagoo la hadlayay taageerayaasha MAGA oo kumanaan gaaray isla markaana Turning Point America Fest wax la yiraahdo oo Arizona lagu qabtay gaar ahaan Phoenix ka soo qayb galay bal isagoo arrimahaasi ka hadlayay hadalkiisii wax yar ila daawada They're just trying to settle on whether it's going to be Gavin Newsom or Kamala Harris. And in the meantime, what are the Democrats offering you in the meantime? I got to say, ladies and gentlemen, they are not sending their best. Omar Fateh was Ilhan Omar's candidate for mayor of Mogadishu. What? I mean Minneapolis. Little Freudian slip there. The candidate for Senate in Maine for the Democrats calls me a Nazi, which is rich coming from a guy who literally has a Nazi tattoo on his chest. And Jasmine Crockett. Oh, Jasmine Crockett. The record speaks for itself. She wants to be a senator, though her street girl persona is about as real as her nails. ugu dambeyntii wasaaradda cadaaladda ceeb ayaa dul hoganaysa waa tii jimcihii ku ekayd inay soo bandhigaan Epstein Files website waa kuwii sameeyay oo ku hoos qoran website-ka wasaaradda cadaaladda ay leedahay meel laga eegan karo Epstein Files-ki dhammaantood laakiin dhammaantood lama soo wada bandhigin wixii la soo bandhigayna faalalka qaarkood waa la madoobeeyay oo redacted ayaa lagu sameeyo lama arki karo waxa ku qoran sawirada qaarkood marka waxa ay xubnaha Congress-ka ee labada xisbi ay leeyihiin arintaasi waxay xadgudub ku tahay sharciga aan meel marinay madaxweynuhuna uu saxiixay waxa jirtay sawir madaxweyne Trump
oo inta la soo geliyey laga bixiyey haddana mar kale dib loogu soo celiyey marka in wax kasta oo Trump la xiriirinaya Epstein Files la qarinayo ayaa meeshaasi ka muuqata xitaa wasaaradda cadaaladdu moga ay ku leedahay X waxay ku soo qoreen in maxkamad ku taala gobolka New York ay qaar ka mid ah xogtaasi ay tiri waa in meesha laga saaraa maadaama dadkii dhibanayaasha ahaa in xogtooda si fudud lagu ogaan karo laakiin waxaa muuqanaysa in wasaaradda cadaaladda sidii la rabay inay u soo bandhigaan Epstein Files aysan u soo bandhigin ilaa iyo 700 oo page kuwa ka badan waa la madmadoobeeyay halka kuwa kale qaarkoodna inta badan xogtii la qariyay marka waxay leeyihiin maxaaba sharcigaasi loo malmariyay ay Congress ku leeyihiin haddii Epstein Files dhammaantood shacabka aan loo soo bandhigaynin oo aan la ogaanaynin waxyaabaha halkaasi ku jira sawirro ayaa la soo bandhigay sawirrada xubnaha dumarka wajigooda waa la qarinayay laakiin sida muuqata in xogta sidii loogu talagalay aysan u soo bandhigin wasaaradda cadaaladda ayaa muuqata sidaas dadka Congress waxay leeyihiin wasiirka cadaaladda Bambondi waa in loo yeeraa arrimahaasina su'aalo laga weydiiyaa haddii sida la rabo ay u soo bandhigi waysana xitaa waxa laga yaabaa inay xarig ku mutaysato marka waan arki doonaa Epstein Files iyo waxyaabaha ka soo kordha laakiin sida hadda wasaaradda cadaaladda ay wax ku wado ma aysan ku qancin xubnaha Congress ee waliba labada xisbi ee u ololeynayay in Epstein Files dhammaantood shacabka loo soo bandhiga oo la ogaado waxa Epstein Files ku jira sidii la rabay hadda uma socoto hawsha sidaas darteedna wasaaradda cadaaladda Congress ayaa la xisaabtami doona marka fasaxooda ay holidayada ay ka soo laabtaan aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkiina cilmi waaro idin la sida iyo nabadgelyo